maamulaha guud ee Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale ayaa ugu baaqay ganacsatada Wajaale iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay door weyn ka qaataan taakulaynta walaalahooda ku hanti beelay dabkii suuqa Wajaale. maamulaha oo ka qayb galay munaasabadda qaranka loogu ururinayay ganacsatadii hantidooda ku waayay suuqa Wajaale ayaa halkaasi kaga dhawaaqay lacag dhan 300 oo kun oo shirkadda Dahabshiil ugu deeqday ganacsatadaasi ay waxyeeladu ka soo gaadhay masiibadii ka dhalatay dabkii ka kacay 17kii bishii Sebtembar ayaan soo dhaafnay. waxana uu yiri marka ugu horeysa uu tacsiinaya dhammaan dadkii ganacsatada ahaa ee halkan ay maanta joogno businesskoodii iyo khasaarahoodii uu ku baaba'ay ama noloshoodii ay dhaawac weyn ku soo gaareen. weli waxaan markaa u tacsiinayaa dadkii ganacsatada ahaa ee waaheen oo businesskooda gubtay. habeenkaa waan xusuustaa uu dabku socday iyo maalintii ku xigtayba. waxaan aad u xusuustaa inaa dhalinyaro ah walaal maxamed sakariye xaaji xuseen وأبيها لا سكرية حاج حسين ويلي شن بزنس بانو مهرود بانو لهين وهين كلهين وكوكتي هاكن نميت مان هنجوتي لما نوش عيد يوردني بحرنايد مهردهاس هاسي وحلم بتدمان تذكر ترى بدن تدواتني أفضل مهردود كان عسود هاكن أي كوباباتي كوا كان عسيق وبدأ شارك الله هانا إلهي نصيب روسيي أي كوبوليستان لكن ما أنت مسؤوليات بوتها الله إنه عاويان تضباط اللي أفرتاقه كان عسو سأل سعطان توجه له كويه هاي حلورك ردمان برمك على وضو كتماته أنت هالجيسية برعقبة تاي قبلتك له وحكبض أنت توجه على تماته توجه له ونقالها تذكر الصومالية دور بلغو تماما على وضع هالكن تماته gobollo badan oo dhul badan oo Soomaalidu meel joogaan baabay marka soo wajaala waa meel dhaqaalaha Soomaalida ama dadka Soomaaliga ku hadlaba muhiimad gaar ah u leh. waxaan kaloo uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii dab kan qaboojiyay ama ka qayb galay ee yareeyay khasaarihiisa ee gobollada kala duwan ka yimid ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ka yimid maanta madaxda afkiisa la jooga. waxay muujinaysaa Soomaalidu markay wada shaqeeyaan inay dhibaato wada ka hortagayaan. dhibaatada maanta jirta ama dadka lacagta loo ururinayo waa la qabaa waraaqii sharciise. haddii qof walba uu is saaro lacag $530 10 kun oo qof baa lacagta bixin karaya. waa lacag marka dhinaca laga eego kasta loo kala qaybsado aad iyo aad u yar. ana waxaan qabaa xitaa inaan Wajaale inay ku filan tahay inay intaa bixiso. ganacsiga Wajaale يا صاحب حلورن كان ما أنت مقالة توجه لما كنا عقبال السكوترو إن $1 بليون يكاريس $1 بليون شن مية صدق بقولك إنه غلطه والله عقادية. لما أنت المركاوين المعاونة بدأ يتبدأ ويبدل ولا ينتهي كان عصتها توجه على الشوكت. بدي لو حنقولت لنا كان عصتها العقد والرئيسة إن كان عصتها والعقد بحساب علامات الباب كل شيء. سكيان بحل عيد والباهي ووقعته. ما أنت ما أنت بخير كل من شيء. ما أنت وما أنت مسقرين شيء اللي سحاول شيء. بريتو موجود واحد عيا سيدا والذي الآخر ما أنت تجوبيه كهضي وخسارة وسوق علي موجود بريتو واحد وقول عيا. habeen kawan xusuustaa walaalkii Cabdiraxmaan bay la soo hadlay wuxuu ku yiri Cabdirashiid oo dabku meel xun u maraya waa laga yaabaa annaga inuu soo gaaro waan sahayn kar waayay cid walba nabrada ay ballanqaaday ilaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Itoobiya ganacsatadu wax badan oo ay dabka kaga hortagi karto ay qaban kartaa wax badan bay ka wada shaqayn karaan. tartanku waa xalaal laakiin tartanka mararka qaarkood gacmahooda isqabsada ayaa ka muhiimsan. dabku adduunka oo dhan ka dhaco waanu dhici doonaa laakiin in cashar laga qaato. horta aad baan ugu faraxsanahay dowladda hoose inay lacag wanaagsan bixisay. waxaan isla hawaabi ka sii badinaysaa maadaama dowladda hoose $600 bixisay قيمت انتصر بحياة $300 وفي البرواقع
codsanaya kula talinaya qofkeeda awoodda caawi oo ganacsatada tag wajaha ay qayb ka weyn ka qaadanayso. Salaamu calaykum. shirkadda dahabshiil group ayaa sidoo kale waxay khidmad la'aan ka dhigtay lacagaha tabarucaadka ah ee bulshadu u soo dirayaan guddiga taakulaynta suuqa tag wajaale iyaga oo ku soo hagaajinaya akoon nambarka guddigaasi oo ka kooban wajaale dahabshiil iyo nambarka gaaban ee 5516.